Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin badda wadayaal ku soo dhawaada wararkeena qodobada aad ku maqli daawan doontaan waxaa ka mid ah wadamada Geeska Afrika oo ku kala qaybsamay xiisada Suudaan iyo Itoobiya siday u kala safan yihiin iyo cida awood badan ayaa dul istaagi doona wararkii ugu dambeeyay shirka xalana iyo saddex shuruudood oo hor yaala madaxweyne Farmaajo midowga musharaxiinta oo qoraal u diray wasiir dibadeedyo iyo sidoo kale madaxda ururada caalamiga Ismaaciil Cumar Geelaha Jabuuti oo jawaab ka bixiyay arrintii ay ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ugu dambeyn Sheekh Umar oo fariin kale u diray Axmed Madoobe iyo Deni una sheegay arrin lagu xanto intaasi waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haddana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan wadamada Geeska Afrika ayaa ku kala qaybsamay xiisada Suudaan iyo Itoobiya siday u kala safan yihiin iyo cida awood badan labadaasi dhinac ayaan dul istaagi doonaa inta aynaan u guda gelin faahfaahinta xagee ayay kasoo bilaabatay xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya aan ku horeynay labada dal ee dhaca Geeska Afrika Suudaan iyo Itoobiya waxay xiisadoodu kasoo bilaabatay xuduudda u dhaxaysa labada dal oo muddo dheer ay Suudaan sheeganaysay in dhul ku habboon beeraha Itoobiya xoog uga haysatay kadib markii Abiy Ahmed xukunka Itoobiya la wareegay isla markaasina furfuray siyaasadii qalabsaneyd ee Itoobiya meeshana ka saaray kooxdii TPLF Itoobiya waxay wajahday caqabado amni oo salka ku hayay sirnacayb kadib kooxda TPLF xukunka sida nabdoon loogala wareegay ayaa dagaal qabow la gashay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya iyadoo markii dambena dagaal toos uu ka dhex qarxay TPLF iyo dowladda dhexe dagaaladaasi oo ilaa iyo maanta socday Itoobiya waxay ka dhaxashay khasaaro badan iyadoo dhanka maaliyadda iyo sanadii ciidankaba ay burburtay waxaana ku dhintay kumanaan Itoobiyaan intaasi wixii ka dambeeyay awoodda Itoobiya waxay noqotay mid weeqantay iyadoo Suudaanna ka faa'iideysatay ayay dagaal ku qabsatay dhulkii ay sheeganaysay in Itoobiya horey xooga uga haysatay dhulkaasi oo lagu magacaabo Al-Fashaqa Suudaan dagaalada ay ku qabsatay dhulkaasi lagu muransan yahay warbaahinteedu toos ayay u soo tabinaysay laakiin Itoobiya way ka gaabsanaysay intii muddo ahayd marka laga yimaado muranka dhanka dhulka ah waxaa ka jira khilaaf u dhaxeeya labada dal oo ku saabsan biyo-xidheenka Itoobiya ka dhistay webiga Nile-ka waxaana la aaminsan yahay in Suudaan marka hore aysan waxbaba u arkaynin biyo-xidheenka laakiin haatan ay dabada ka riixayso dalka Masar xiisadaasi marba marka ka dambeysa kasii daraysay ee u dhaxaysay Suudaan iyo Itoobiya ugu dambeyntii waxay sababtay in mid waliba uu raadiyo taageero wadamada dariska Itoobiya oo hoos u dhac weyn oo dhanka diblomaasiyadda uu ku yimid tan iyo intii ay gashay dagaalkii Tigreega waxay xulufo ka dhigatay Eritrea koonfurta Suudaan wadanka yar ee Jabuuti iyo Soomaaliya oo tabar badan lahayn halka Suudaanna ay garab ka dhigatay Masar oo ah dalka ugu awooda badan qaaradda Afrika marka laga yimaado Koonfur Afrika Kenya Uganda iyo sidoo kale Rwanda xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya oo asal ahaan salka ku haysa biyaha iyo dhulka lagu muransan yahay ayaa laga cabsi qabaa inuu dagaal furan oo xoogan oo ka qarxa Geeska Afrika dhanka iyo Soomaaliyana wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya shirka xalana iyo saddex shuruudood oo hor yaala madaxweyne Farmaajo waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu shir uga furmo magaalada Muqdisho kaasi oo qabsoomidiisa ay dadaal badan ku bixiyeen wakiilada beesha caalamka gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sidaan xogta ku helayna shirkani waxaa lagu aasteeyay inuu ka dhaco teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay madaxweyne Farmaajo taasi oo ku taala Afisiyoni ee ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM waxaana taasi loo yeelayaa fulinta shuruudda Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ee dalbaday in shirka lagu qabto goob ammaankeeda la isku aamini karo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaa loo sheegay in Muqdisho imaanayaan inta lagu guda jiro toddobaadkan waxayna wataan shuruudo cusub oo ay la iman doonaan shirkaasi dowladda federaalka ayaa doonaysa in shirkaasi lagu soo koobo xaflad dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in shirkaasi lagu soo koobo xaflad iyo in madaxdu ku kala saxeexdaan qodobadii xalka laga gaaray khilaafkii doorashada ee shirkii gudiyada farsamada ku kala matalayay dhinacyada kaasi oo bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed hase yeeshee xogta aan helayna waxay sheegaysaa in heshiiskii Baydhabo kadib Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ay la yimaadeen saddex shuruudood oo cusub kuwaasi oo kala ah
kow in madaxweyne farmaajo saxiixa warqadda xilsi gaarsiinta. labo in wixii sharciyada la saxiixay 27 bishii Diseembar kadib xilligaasi uu dhammaaday muddaxileedkii baarlamaanka laga laabto. iyo 3 in amniga doorashooyinka laga wada hadlay kadib Muqdisho wixii ka dhacay 19 Febraayo. dhanka kalena madaxweynaha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo haatan safar u jooga dalka Turkiga waxaa la sheegay inay ugu dambeyn dalka dib ugu soo laaban doonaan Arbacada soo socota si ay uga qayb galaan shirkaasi ka dhacaya magaalada Muqdisho. midowga musharaxiintuna waxay qoraal u direen wasiir dibadeedyo iyo madaxda ururada caalamiga ah. golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag iyo ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qarannimada Soomaaliya. waxay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirada arrimaha dibadda dhowra. qoraalkan ayaa 15 musharax ee golahani u direen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga, xogayaha arrimaha dibadda Britain, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, gudoomiyaha midowga Afrika, xogayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo sidoo kale xogayaha guud ee jaamacadda Carabta. golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnahan ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijin kara doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha. taniyo markii uu dhammaaday muddaxileedka xafiiska madaxweynihii hore ee Farmaajo 7 Febraayo, Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan, ayaa lagu yidhi qoraalka loo diray madaxdaasi. waxa ay sheegeen in dooda ku dhisan danta shakhsi ee madaxweynihii hore in xafiiska uu sii joogo inta laga dooranayo cid bedeshay ay tahay mid aan sax ahayn, sababtoo ah isaga ayaa ah sababta ugu weyn ee dib u dhigtay hannaankii doorashada, ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Jabuutina wuxuu jawaab ka bixiyay arrintii ay ka carootay dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay eedayn ay dowladda Soomaaliya u jeedisay Jabuuti kadib markii guddi ka socday ay warbixin ka diyaariyeen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo la baarayo faragelin iyo abaabul jabhado hubeysan oo ka cabatay Soomaaliya. gabagabadii sanadkii 2002 waxaa cirka isku shareertay xiisadii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, waxayna dowladda Soomaaliya cayrisay safiirkii Kenya ka joogay Muqdisho iyadoo ku eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bishii Diseembar ee sanadkaasi isku arkay shirkii IGAD ee ka dhacay dalka Jabuuti, waxaana kulan ay yeesheen kuwa helinayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxda urur goboleedyada IGAD Jabuuti ayay xilligaasi u xilsaareen inay dadaal ku bixiso sidii loo dejin lahaa xiisadda heerkeedu sarreeya ee Soomaaliya iyo Kenya. maalmo kadibna waxay Jabuuti xuduudda labada dal u dirtay guddi xaqiiqo raadina kaasi oo soo baaray waxa ka jira eedayntii ay dowladda Soomaaliya ku eedeysay Kenya. warbaahinta gobolka ayaa baahisay nuqullo ka mid ah warbixin ay u diyaariyeen guddigaasi, waxaana weji kala yeelatay xiisadii jirtay. dowladda Soomaaliya ayaana ka carootay natiijada warbixintii guddiga ay dirtay Jabuuti. warbixinta waxaa ku xusnayd in waxba aysan ka jirin inta badan eedeymihii ay dowladda Soomaaliya u soo jeedisay dhigeeda Kenya. dowladda Soomaaliya oo xilligaasi si cadho leh uga hadashay warbixinta Jabuuti ayaa ku eedeysay inay kala safatay Kenya iyo guddiga ay soo dirtay oo qaateen doodii Kenya oo ay iska indhatireen cadaymihii iyo eedeynteedii ay haysatay dowladda Soomaaliya. haddaba maanta ayuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo markii ugu horeysay ka jawaabayay eedeymahaasi dowladda Soomaaliya u jeedisay Jabuuti iyo xiriirka xumaaday ee labada dal Soomaaliya iyo Kenya. waxa uu kala hadlay BBC Soomaalida. ugu horreynna madaxweyne Geelle ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in loo hagaajiyo xiriirka Muqdisho iyo Nairobi, isagoo xusay in labada wadan ay daris yihiin isla markaasina aysan sinaba u kala maarmin. madaxweynaha Jabuuti ayaa sharaxay sababta ay dowladda Soomaaliya uga jawaabi waayeen markii ay ka carootay sida ay Jabuuti u wajahday khilaafkii Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxayn kartaa ma jirto. tan labaadna hawshani waxay ku timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya u soo bandhigay shir goboleedka
wadaxaajoodkii IGAD oo nala yidhi idinka ugu dhowee bal soo eega, waan iska diidi karray waana odhan karray cid kale u dira, laakiin kalgacal baanu u ogolaanay ayuu yidhi Ismaaciil Cumar Geelle. Isagoo hadalkiisii sii wata ayuu yidhi waxaan soo aragnay iyo waxa aan qoray ragga Soomaaliyeed ma aysan akhrin runta haddii la fiiriyo, mana garanayo wixii ku dhex jiray meeshaasi. Madaxeedkii IGAD ayaa lala sugayaa arrintaasi lagu faaqidi doonaa. Cidda buunbuunisay ee u qaylo dhaamisay anigu ma garanayo. Waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday sababta uu xilligaasi ugu jawaabi waayay cadhadii dowladda Soomaaliya ay ka muujisay tallaabadii ka dhalatay warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta ee ka socotay Jabuuti. Waxaan iska diidnay inaan jawaabno ama ka iraahdo arrintaasi, maxaa yeelay dabka haddii lasii huriyo dhibaato unbaa imanaysa. Wax weyn ma ahayn arrintaasi, wuu iska dhammaanayaa haddii Alla idmo, ayuu yidhi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Ugu dambeyntiina Sheekh Umal ayaa fariin u diray madaxweyne Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe isagoo u sheegay arrin lagu xanto. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa fariin u diray labada madaxweyne ee maamulada Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Madoobe, wuxuuna ka codsaday arrin gaar ah. Sheekh Umar oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ayaa ka codsaday labada madaxweyne inay wax shuruuda aysan ku xidhin ka qaybgalka shirka arrimaha doorashooyinka looga hadlayo ee la filayo in loogu dhawaaqo maalmaha soo aadan. Masaalixda ummadda u tanaasula, shuruudaha meel iska dhiga, miiska imaada oo in la wada hadlo oo la wada tashado ogolaada, masaalixda caamka ka shaqeeya, ayuu yidhi Sheekh Maxamed Cabdi Umal. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waxaa shuruudo badan hordhigteen wadahadaladii ummadda isagoo hadalkiisii sii wata ayuu yidhi waxaad shuruudo adag hordhigteen wadahadaladii. Guud ahaanba intaasi ayaan ku saafmeeraynaa wararkeennii. Ku mahadsan idinla socodkiina.